iyo waxa weeyaan mushkiladaha waxa weeyaan haysta aan ka cawdana qodob sharciya qodobka 28 ee dastuuriga ayaa fasaxaya waxa weeye beertaydani waxay jirtaa waa 63 sano waa aabahay waa kan waa 9 iyo santig buu jiraa waxa weeye beertayadu de waxa weeye maxkamadda gelin wax dacwado beerta Xuseen oo cilmi ka jirto oo ka dhacday haba yaraatay horeysiyo dambeysay ma jirto waxa jirta beerta adeerkay oo ku xigta beertayada nagu xigta oo beerta koonfurna oo qoynaga xigta ayaa lagu damaaciyay adeerkay dhaxayaashii uu ka tagay waxa weeye beerta loo qabsaday aabahay ee leeyahay waad iibisay waa beerta adeerkay taasina may cadaanin waa la waayay اللهم صل على محمد gurigeyga waa kan anigu bartana ku dhashay waxa weeye barkadeedii baa ka qodan ayeeyday baa ku aasan walaalahay baa ku aasan waxaan ku aasaartii barkadu aabahay qoday baa waxa weeyaan oo jirto waxa weeyaan qodan oo imaka qodan beertu waa beerta beeran ee waxa weeyaan oodan ee beeran ee waxa weeyaan adarkayso waxana lagu haystaa oo waxa weeye nalagu haystaa waxa weeye haabanina waxa nagu inta nala weeraray oo boolis nala galiyay oo waxa weeyaan la rasaasiyay oo galimaadna lagu sameeyay fara badan ayaa markaan cabanina lagu yiri waxa weeyaan maxaa cabateeno anigoo Hargeysa 2 kiiloomitir u jira oo aan leeso qofka waxa weeyaan waa la dacweyn karaa waana waxa weeyaan qofka hadii dambi galo waa la dacweyn karaa adigoo anagoo aan dambi gelin oo aan gashi gelin oo aan cid dilin oo beertaydii joogna ayaa waxana lagu xukumay 5 sano waxana lagu xukumay maxaa hadashayna cabateena waxa weeyaan waxa idin haysta cadaalad darrada jirta uga hadash waxaan u sheegaynaa cid qosayso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha maxkamadda sare waxa ka socda wadanka in la ogaado ayaa wanaagsan maxkamad meesha mushkiladu ka jirtay ee la isku dadka in carruur loo kariyo la maraya in carruur loo kariyo ayaa la maraya maxkamadihii Soomaaliland iyo booliiskii si qaldan baa ay u shaqeynayaan ismana lihiin anigu waxaana loo sheegayaa jananka ciidanka booliiska cidana haysataa waa mas'uuliyiin dawladda ka watirsan haduu yahay agaasimaha maaliyadda haduu yahay waxa weeyaan jananka ciidanka booliiska haduu yahay waxa weeyaan saraakiil kale oo la mid oo ognahay cadaymo fara badan baan haysanaa beertii aanu lahayn inuu deganeyn waxa weeyaan dadkayga ku aasnaa ee aanu ku dhalanay baan lagu haystaayo waxa weeyaan nalagu damaceeya markii aan maqlay waxa weeyaan maxkamadda arrintan ka jirta ee imka laygu waxa weeyaan maxaa u cabatay baa lagu xukumayaa ee aan sidii maxkamadda tagoo dacwad waxa la diiday xataa lawrkayga waa la diiday inuu ka hadlo arrintayda wakaaladaydii oo gal kala geliyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka iyo intuu ka saaray uu jeexjeexay ayuu tuuray markii lagu yiri maxaa waxa sameeyay wuxuu yiri kama lagama doodi karo loomana hadli karo nin aan doodin nin leeyahay waa lagu soo dacweeyay oo aan doodin oo istifaacin oo la xukumo oo waliba lagu xukumo waxa weeyaan maxaa u cabatay ma malaynayo anigu de waxa weeye wali waxa halkan ka soo socdaa inuu waxa weeyaan inay dhowdahay wali waxa laga doonaya waxa laga qoqodaya wali ma dhawaa haddii arrintaa waxba laga qaban waayo oo cid ay qusaysa arrintaas si degdeg waxba uga qaban weydo oo arrinteeda la si degdeg loo soo fargelin waayo oo waxa weeyaan arrinteeda cid loogaan waayo wax ka xun baa dhicida wax laga qoomaya ka dhici doono anagu cidna doonan mayno cid dooni mayno cid ku duuli mayno laakiin cidda naftayada iyo maalkayga iyo waxa weeyaan cirdigayga nagu soo weerartaa waa ka jawaabina diyaar baan u nahay waxaanu waxa weeye la socodsiinaynaa oo nuu sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha haduu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cadaalad darraan ka cabanayna cadaalad darraan haysata arrinta nafiya maala arrinta inay si degdeg waxa weeyaan wax looga qabtaan waxa weeye u gudbinayna fariinta waxaan ka hoos fadhinaa cadaalad darradan ugu dhacday sharciga jamhuuriyadda sharcigan ka hoos fadhinaa ayaan ka hoos jirnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka hadlayaa arrimahan soo socda inaan cawdo
dhibaatooyinka jira iyo waxa weeyaan mushkiladaha waxa weeyaan haysta aan ka cawdana qodob sharciya qodobka 28 ee dastuuriga ayaa fasaxaya waxa weeye beertayadani waxay jirtaa waa 63 sano waa aabahay waa kan waa 9 iyo something buu jiraa waxa weeye beertayadu dee waxa weeye maxkamad ma gelin wax dacwado beerta Xuseen oo cilmi ka jirto oo ka dhacday haba yaraatee horeysiyo dambeysay ma jirto waxa jirta beerta adeerkay oo ku xigta beertayada nagu xigta oo beerta koonfurna oo qoyn naga xigta ayaa lagu damaaciyay adeerkay dhaxayaashii uu ka tagay waxa weeye beerta loo qabsaday aabahay ee leeyahay waad iibisay waa beerta adeerkay taasina may cadaanin waa la waayay اللهم صل على محمد قريق واكن أنا برتنا كل شيء وحوي بركده يدي باكو قدن يدي باكو أصلا ولا الله باكو أصلا وحنكو آثارتي بركده أبهاي قضيبة وحويان أخ أو شرتو وحويان قدن أو إما كقدن بيرتوا بيرتها بيرن وحويان أوضن بيرن وحويان هذا كيسو وحنا لغوها يستا oo waxa weeye nalagu haystaa waxa weeye haabanina waxa nagu inta nala weeraray oo boolis nala galiyay oo waxa weeyaan la rasaasiyay oo galimaad nalagu sameeyay fara badan ayaa markaanu cabanina lagu yiri waxa weeyaan maxaa cabateeno anigoo Hargeysa 2 kiiloomitir u jira oo aan leeso qofka waxa weeyaan waa la dacweyn karaa waana waxa weeyaan qofka hadii dambi galo waa la dacweyn karaa adigoo anagoo aan dambi gelin oo aan gashi gelin oo aan cid dilin oo beerteedii joogna ayaa waxana lagu xukumay 5 sano waxana lagu xukumay maxaa u hadashayna cabateena waxa weeyaan waxa idin haysta cadaalad darrada jirta uga hadash waxaan u sheegaynaa cid qosayso madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha maxkamadda sare waxa ka socda wadanka in la ogaado ayaa wanaagsan maxkamad meesha mushkiladu ka jirtay ee la isku dadka in carruur loo kariyo la maraya in carruur loo kariyo ayaa la maraya maxkamadihii Soomaaliland iyo booliiskii si qaldan baa ay u shaqeynayaan ismana lihi anigu waxaana loo sheegayaa jananka ciidanka booliiska ciidan haysta waa mas'uuliyiin dawladda ka watirsan haduu yahay agaasimaha maaliyadda haduu yahay waxa weeyaan jananka ciidanka booliiska haduu yahay waxa weeyaan saraakiil kale oo la mid oo ognahay cadaymo fara badan baan haysanaa beertii aanu lahayn inuu deganeyn waxa weeyaan dadkayga ku asnaayee aanu ku dhalanay baan lagu haystaa oo waxa weeyaan malagu damaceeya markii aan maqlay waxa weeyaan maxkamadda arrintan ka jirtay imka laygu waxa weeyaan maxaa u cabatay baa lagu xukumayaa ee aan sidii maxkamadda tagoo dacwood waxa la diiday xataa lawrkayga waa la diiday inuu ka hadlo arrintayda wakaaladaydii oo gal kala geliyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka iyo intuu ka saaray uu jeexjeexay ayuu tuuray markii lagu yiri maxaa waxa sameeyay wuxuu yiri lagama doodi karo loomana hadli karo nin aan doodin nin leeyahay waa lagu soo dacweeyay oo aan doodin oo istifaacin oo la xukumo oo waliba lagu xukumo waxa weeyaan maxaad u cabatay ma malaynayo anigu de waxa weeye wali waxa halkan ka soo socda inuu waxa weeyaan inay dhowdahay wali waxa laga doonaya waxa laga qodqodaya wali ma dhawaa haddii arrinta waxba laga qaban waayo oo cid ay qusaysa arrintaas si degdeg waxba uga qaban weydo oo arintayada la si degdeg loo soo fargelin waayo oo waxa weeyaan arintayada cid loogaan waayo wax ka xun baa dhicida wax laga qoomay ka dhici doono anagu cidna doonan mayno cid dooni mayno cid ku duuli mayno laakiin cidda naftayada iyo maalkayga iyo waxa weeyaan cirdigayga nagu soo weerartaa waa ka jawaabina diyaar baan u nahay waxaanu waxa weeye la socodsiinaynaa oo nuu sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha haduu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland cadaalad darraan ka cabanayna cadaalad darraan haysata arinta nafiya maala arinta inay si degdeg ah waxa weeyaan wax looga qabtaan waxa weeye u gudbinayna fariinta waxaan ka hoos fadhinaa cadaalad darrada ugu dhacday sharciga Jamhuuriyadda sharcigan ka hoos fadhinaa ayaan ka hoos jirnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka hadlayaa arrimaha soo socda
inaan cawdo dhibaatooyinka jira iyo waxa weeyaan mushkiladaha waxa weeyaan haysta aan ka cawdana qodob sharciya qodobka 28aad ee dastuuriga ayaa fasaxaya waxa weeye beertaydani waxay jirtaa waa 63 sano waa aabahay waa kan waa 90 iyo something buu jiraa waxa weeye beertayadu de waxa weeye maxkamad gelin wax dacwado beerta xiseen oo cilmi ka jirto oo ka dhacday haba yaraatay horeysay dambeysay ma jirto waxa jirta beerta adeerkay oo ku xigta beertayada nagu xigta oo beerta koonfurna oo qoynaga xigta ayaa lagu damaaciyay adeerkay dhaxayaashii uu ka tagay waxa weeye beerta loo qabsaday aabahay ee leeyahay waad iibisay waa beerta adeerkay taasina may cadaanin waa la waayay اللهم صل على محمد قريق واكن أنا وبرتنا كل شيء وحوي بركده يدي باكو قدن يدي باكو أصلا ولا الله باكو أصلا وحنكو آثارتي بركده أبهاي قضيبة وحويان أخ أو شرتو وحويان قدن أو إما كقدن بيرتوا بيرتها بيرن وحويان أوضن بيرن وحويان هذا كيسو وحنا لقوها يستا oo waxa weeye nalagu haystaa waxa weeye haabanina waxa nagu inta nala weeraray oo boolis nala galiyay oo waxa weeyaan la rasaasiyay oo galimaadna lagu sameeyay fara badan ayaa markaanu cabanina lagu yiri waxa weeyaan maxaa cabateeno anigoo Hargeysa 2 kiiloomitir u jira oo aan leeso qofka waxa weeyaan waa la dacweyn karaa waana waxa weeyaan qofka haduu dambi galo waa la dacweyn karaa adigoo anagoo aan dambi gelin oo aan gashi gelin oo aan cid dilin oo beerteedii joogna ayaa waxana lagu xukumay 5 sano waxana lagu xukumay maxaa u hadashayna cabateena waxa weeyaan waxa idin haysta cadaalad darrada jirta uga hadash waxaan u sheegaynaa cid qosayso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha maxkamadda sare waxa ka socda wadanka in la ogaado ayaa wanaagsan maxkamad meesha mushkiladu ka jirtay ee la isku dadka in carruur loo kariyo la maraya in carruur loo kariyo ayaa la maraya maxkamadihii Soomaaliland iyo booliiskii si qaldan baa ay u shaqeynayaan ismaalihii anigu waxaana loo sheegayaa jananka ciidanka booliiska ciidan haysataa waa mas'uuliyiin dawladda ka watirsan haduu yahay agaasimaha maaliyadda haduu yahay waxa weeyaan jananka ciidanka booliiska haduu yahay waxa weeyaan saraakiil kale oo la mid oo ognahay cadaymo fara badan baan haysanaa beertii aanu lahayn inuu deganeyn waxa weeyaan dadkayga ku asnaayee aanu ku dhalanay baan lagu haystaayo waxa weeyaan malagu damaceeya markii aan maqlay waxa weeyaan maxkamadda arrintan ka jirtay imka laygu waxa weeyaan maxaa u cabatay baa lagu xukumayaa ee aan sidii maxkamadda tagoo dacwood waxa la diiday xataa lawrkayga waa la diiday inuu ka hadlo arrintayda wakaaladaydii oo gal kala geliyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka iyo intuu ka saaray uu jeexjeexay ayuu tuuray markii lagu yiri maxaa waxa sameeyay wuxuu yiri lagama doodi karo loomana hadli karo nin aan doodin nin leeyahay waa lagu soo dacweeyay oo aan doodin oo istifaacin oo la xukumo oo waliba lagu xukumo waxa weeyaan maxaa u cabatay ma malaynayo anigu de waxa weeye wali waxa halkan ka soo socda inuu waxa weeyaan inay dhowdahay wali waxa laga doonaya waxa laga qoqodaya wali ma dhawaa haddii arrinta waxba laga qaban waayo oo cid ay qusaysa arrinta si degdeg waxba uga qaban weydo oo arrinteeda la si degdeg loo soo faragelin waayo oo waxa weeyaan arrinteeda cid loogaan waayo wax ka xun baa dhicida wax laga qoomaya ka dhici doono annagu cidna doonan mayno cid dooni mayno cid ku duuli mayno laakiin cidda naftayada iyo maalkayga iyo waxa weeyaan cirdigayga nagu soo weerartaa waa ka jawaabina diyaar baan u nahay waxaanu waxa weeye la socodsiinaynaa oo nuu sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha haduu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cadaalad darraan ka cabanaynaa cadaalad darraan haysata arrinta nafiya maala arrinta inay si degdeg ah waxa weeyaan wax nalooga qabtaan waxa weeye u gudbinaynaa fariinta waxaan ka hoos fadhinaa cadaalad darrada ugu dhacday sharciga jamhuuriyadda sharcigan ka hoos fadhinaa ayaan ka hoos jirnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka hadlayaa arrimahan soo socda
inaan cawdo dhibaatooyinka jira iyo waxa weeyaan mushkiladaha waxa weeyaan haysta aan ka cawdana qodob sharciya qodobka 28 ee dastuuriga ayaa fasaxaya waxa weeye beertaydani waxay jirtaa waa 63 sano waa aabahay waa kan waa 9 iyo santi buu jiraa waxa weeye beertayadu de waxa weeye maxkamad ma gelin wax dacwado beerta Xuseen oo cilmi ka jirto oo ka dhacday haba yaraatay horeysiyo dambeysay ma jirto waxa jirta beerta adeerkay oo ku xigta beertayada nagu xigta oo beerta koonfurna oo qoyn naga xigta ayaa lagu damaaciyay adeerkay dhaxayaashii uu ka tagay waxa weeye beerta loo qabsaday aabahay ee leeyahay waad iibisay waa beerta adeerkay taasina ma cadaanino waa la waayay اللهم صل على محمد gurigeyga waa kan anigu bartana ku dhashay waxa weeye barkadeedii baa ka qodan ayeeyday baa ku aasan walaalahay baa ku aasan waxaan ku aasaartii barkadu aabahay qoday baa waxa weeyaan oo jirto waxa weeyaan qodan oo imaka qodan beertu waa beerta beeran ee waxa weeyaan oodan ee beeran ee waxa weeyaan adarkayso waxana lagu haystaa oo waxa weeye nalagu haystaa waxa weeye haabanina waxa nagu inta nala weeraray oo boolis nala galiyay oo waxa weeyaan la rasaasiyay oo galimaadna lagu sameeyay fara badan ayaa markaanu cabanina lagu yiri waxa weeyaan maxaa cabateeno anigoo Hargeysa 2 kiiloomitir u jira oo aan leeso qofka waxa weeyaan waa la dacweyn karaa waana waxa weeyaan qofka haduu dambi galo waa la dacweyn karaa adigoo anagoo aan dambi gelin oo aan gashi gelin oo aan cid dilin oo beerteedii joogna ayaa waxana lagu xukumay 5 sano waxana lagu xukumay maxaa u hadashayna cabateena waxa weeyaan waxa idin haysta cadaalad darrada jirta uga hadash waxaan u sheegaynaa cid qosayso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha maxkamadda sare waxa ka socda wadanka in la ogaado ayaa wanaagsan maxkamad meesha mushkiladu ka jirtay ee la isku dadka in carruur loo kariyo la maraya in carruur loo kariyo ayaa la maraya maxkamadihii Soomaaliland iyo booliiskii si qaldan baa ay u shaqeynayaan ismaalihii anigu waxaana loo sheegayaa jananka ciidanka booliiska ciidan haysataa waa mas'uuliyiin dawladda ka watirsan haduu yahay agaasimaha maaliyadda haduu yahay waxa weeyaan jananka ciidanka booliiska haduu yahay waxa weeyaan saraakiil kale oo la mid oo ognahay cadaymo fara badan baan haysanaa beertii aan lahayn inuu deganeyn waxa weeyaan dadkayga ku aasnaaye aan ku dhalanay baan lagu haystaayo waxa weeyaan malagu damaceeya markii aan maqlay waxa weeyaan maxkamadda arrintan ka jirta ee imka laygu waxa weeyaan maxaa u cabatay baa lagu xukumayaa ee aan sidii maxkamadda tagoo dacwad waxa la diiday xataa lawrkayga waa la diiday inuu ka hadlo arrintayda wakaaladaydi oo gal kala galiyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka iyo intuu ka saaray uu jeexjeexay oo ayuu fuuray markii lagu yiri maxaa u sameeyay wuxuu yiri kama lagama doodi karo loomana hadli karo nin aan doodin nin leeyahay waa lagu soo dacweeyay oo aan doodin oo istifaacin oo la xukumo oo waliba lagu xukumo waxa weeyaan maxaa u cabatay uma malaynayo anigu de waxa weeye wali waxa halkan ka soo socda inuu waxa weeyaan inay dhowdahay wali waxa laga doonaya waxa laga qoqodaya wali ma dhawaa haddii arrinta waxba laga qaban waayo oo cid ay qusaysa arrinta si degdeg waxba uga qaban weydo oo arrinteeda la si degdeg loo soo fargelin waayo oo waxa weeyaan arrinteeda cid loogaan waayo wax ka xun baa dhacdo wax laga qoomaya ka dhici doono anagu cidna doonan mayno cid dooni mayno cid ku duuli mayno laakiin cidda naftayada iyo maalkayga iyo waxa weeyaan cirdigayga nagu soo weerarta waa ka jawaabina diyaar baan u nahay waxaanu waxa weeye la socodsiinaynaa oo nuu sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha haduu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cadaalad darraan ka cabanayna cadaalad darraan haysata arrinta nafiya maala arrinta inay si degdeg ah waxa weeyaan wax nalaga qabtaan waxa weeye u gudbinayna fariinta waxaan ka hoos fadhinaa cadaalad darradan ugu dhacday sharciga jamhuuriyadda sharcigan ka hoos fadhinaa ayaan ka hoos jirnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka hadlayaa arrimahan soo socda
inaan cawdo dhibaatooyinka jira iyo waxa weeyaan mushkiladaha waxa weeyaan haysta aan ka cawdana qodob sharciya qodobka 28 ee dastuuriga ayaa fasaxaya waxa weeye beertaydani waxay jirtaa waa 63 sano waa aabahay waa kan waa 9 iyo santig buu jiraa waxa weeye beertayadu dee waxa weeye maxkamad ma gelin wax dacwad oo beerta Xuseen oo cilmi ka jirto oo ka dhacday haba yaraatee horeysiyo dambeysay midna ma jirto waxa jirta beerta adeerkay oo ku xigta beertayada nagu xigta oo beerta koonfurna oo qoynaga xigta ayaa lagu damaaciyay adeerkay dhaxayaashii uu ka tagay waxa weeye beerta loo qabsaday aabahay ee leeyahay waad iibisay waa beerta adeerkay taasina may cadaanin waa la waayay اللهم صل على محمد gurigeyga waa kan anigu bartana ku dhashay waxa weeye barkadeedii baa ka qodan ayeeyday baa ku aasan walaalahay baa ku aasan waxaan ku aasaartii barkadu aabahay qoday baa waxa weeyaan oo jirto waxa weeyaan qodan oo imaka qodan beertu waa beerta beeran ee waxa weeyaan oodan ee beeran ee waxa weeyaan adarkayso waxana lagu haystaa oo waxa weeye nalagu haystaa waxa weeye haabanina waxa nagu inta nala weeraray oo boolis nala galiyay oo waxa weeyaan la rasaasiyay oo galimaadna lagu sameeyay fara badan ayaa markaan cabanina lagu yiri waxa weeyaan maxaa cabateeno anigoo Hargeysa 2 kiiloomitir u jira oo aan leeso qofka waxa weeyaan waa la dacweyn karaa waana waxa weeyaan qofka haduu dambi galo waa la dacweyn karaa adigoo anagoo aan dambi gelin waanan gashi gelin waanan cid dilin oo beertaydii joogna ayaa waxana lagu xukumay 5 sano waxana lagu xukumay maxaa u hadashayna cabateena waxa weeyaan waxa idin haysta cadaalad darrada jirta uga hadash waxaan u sheegaynaa cid qosayso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha maxkamadda sare waxa ka socda wadanka in la ogaado ayaa wanaagsan maxkamad meesha mushkiladu ka jirtay ee la isku dadka in carruur loo kariyo la maraya in carruur loo kariyo ayaa la maraya maxkamadihii Soomaaliland iyo booliiskii si qaldan baa ay u shaqeynayaan ismana lihiin anigu waxaana loo sheegayaa jananka ciidanka booliiska ciidan haysataa waa mas'uuliyiin dawladda ka watirsan haduu yahay agaasimaha maaliyadda haduu yahay waxa weeyaan jananka ciidanka booliiska haduu yahay waxa weeyaan saraakiil kale oo la mid oo ognahay cadaymo fara badan baanu haysanaa beertii aanu lahayn inuu deganeyn waxa weeyaan dadkayga ku aasnaa ee aanu ku dhalanay baan lagu haystaa oo waxa weeyaan nalagu damaceeya markii aan maqlay waxa weeyaan maxkamadda arrintan ka jirta ee imka laygu waxa weeyaan maxaa u cabatay baa lagu xukumayaa ee aan sidii maxkamadda tagoo dacwood waxa la diiday xataa lawrkayga waa la diiday inuu ka hadlo arrintayda wakaaladaydii oo gal kala geliyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka iyo intuu ka saaray uu jeexjeexay ayuu tuuray markii lagu yiri maxaa waxa uu sameeyay wuxuu yiri kama lagama doodi karo loomana hadli karo nin aan doodin nin leeyahay waa lagu soo dacweeyay oo aan doodin oo istifaacin oo la xukumo oo waliba lagu xukumo waxa weeyaan maxaa u cabatay ma malaynayo anigu de waxa weeye wali waxa halkan ka soo socdaa inuu waxa weeyaan inay dhowdahay wali waxa laga doonaya waxa laga qoqodaya wali ma dhawaa haddii arrintaa waxba laga qaban waayo oo cid ay qusaysa arrintaa si degdeg waxba uga qaban weydo oo arrintayada si degdeg loo soo fargelin waayo oo waxa weeyaan arrintayada la ogaan waayo wax ka xun baa dhicida wax laga qoomaya ka dhici doono annagu cidna doonan mayno cid dooni mayno cid ku duuli mayno laakiin cidda naftayada iyo maalkayaga iyo waxa weeyaan cirdigayga nagu soo weerartaa waa ka jawaabinaa diyaar baanu nahay waxaanu waxa weeye la socodsiinaynaa oo nuu sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha hadduu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cadaalad darraan ka cabanayna cadaalad darraan haysata arrinta nafiya maala arrinta inay si degdeg ah waxa weeyaan wax nalooga qabtaan waxa weeye u gudbinayna fariinta waxaan ka hoos fadhinaa cadaalad darradan ugu dhacday sharciga jamhuuriyadda sharcigan ka hoos fadhinaa ayaan kaga hoos jirnaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan ka hadlayaa arrimahan soo socda
inaan cawdo dhibaatooyinka jira iyo waxa weeyaan mushkiladaha waxa weeyaan haysta aan ka cawdana qodob sharciya qodobka 28 ee dastuuriga ayaa fasaxaya waxa weeye beertaydani waxay jirtaa waa 63 sano waa aabahay waa kan waa 9 iyo santig buu jiraa waxa weeye beertayadu dee waxa weeye maxkamad ma gelin wax dacwado beerta Xuseen oo cilmi ka jirto oo ka dhacday haba yaraatee horeysiyo dambeysay ma jirto waxa jirta beerta adeerkay oo ku xigta beertayada nagu xigta oo beerta koonfurna oo qoynaga xigta ayaa lagu damaaciyay adeerkay dhaxayaashii uu ka tagay waxa weeye beerta loo qabsaday aabahay ee leeyahay waa diibisay waa beerta adeerkay taasina may cadaanin waa la waayay اللهم صل على محمد قولي واكن أنا وبرتنا كل شيء وحوي بركده يدي باكو قدن يدي باكو أصلا ولا الله باكو أصلا وحنكو آثارتي بركده أبهاي قضيبة وحويان أخ أو شرتو وحويان قدن أو إما كقدن بيرتوا بيرتها بيرن وحويان أوضن بيرن وحويان